kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka haween ee Cable TV oo caawin kaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho. Warka haween waxa idin akhrin doona anigu Maxamed Ibrahim. Qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shirka tubta howlgelinta wadajirka ee Soomaaliya iyo Midowga Yurub. Laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu helay dil ay u geysteen oday beeraley ah. xildhibaan Barqad Batuun ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay iibsanayso dhulka hantida dadweynaha. Israa'iilna waxay sheegtay inay duqeymo ka geysan doonto dhulka Lubnaan kadib duqeymo ugu yimid dhankaasi Xamaas. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeen haween ee Cable TV ee haatan ku soo dhawaada.